waxay yidhaahdaan marxalada gaalada qaar badan oo wax ka qoray iyagu markay fahmi waayeen waxay yidhahdaan waa marxalatul junuun marxaladu ilmuhu waasho weeyaan bay kuwooda wax ka qoraa marxaladu qofku waasho oo u baahan yahay wax kale iyo miir kale in loo raadiyo marka aqli ahaanna uu isu bedelaa ilmuhu jir ahaanna uu isu bedelaa taa ku dheeraan maynee waa marxalad marka la soo ururiyo bay yidhaahdeen ilmuhu u baahan yahay ictiraaf Soomaad maqal dad badan baa ictiraaftoon kugu badan yahay ilmahana ictiraaftoonaho inantiina waxay leedahay hooy la qabso aniga qudhayda gabadh weyne wiilkiina wuxuu leeyahay odaygii la qabso qudhigaygu nin weyn baan haatan haye marka waa inaan loogu soo hagaagin baa ilmihii yaraa la diri jiray la canaanan jiray la huruufi jiray aamus loo oran jiray ictiraaf horta waa in xoogaa ictiraaf la sameeyo sida loo ictiraafayaa bay markaa sharax ka bixiyeen tobaneeyo qodob haddii aan maraajicda intaan ka soo qoray qaar ka mida ka soo qaato marxaladaas waxay ka bilaabmaysaa bay yidhaahdeen waa se iyagu u yidhaahdeen teen age macnaha waa 18 ilaa 19 waa waktigaas ereygaa la raaciyo ama 3 toddobaadba toddobada hore marka laga yimaado toddobada dhexe iyo toddobada dambe ilaa 14 ilaa 21 waxay ka waramayaan waa waxda ummadaha shisheeye iyo culimada muslimiinta wax ka qorayba isku waafaqsan yihiin ilmaha waa in marxaladda lagu baraarujiyaa marxaladdu marayo oo aad tidhaahdaa marxaladdan aad maraysa waa marxaladdii kugu qiimaha badnayd cimrigaaga aad wax badan u kororsan lahayd idan icdaadkan wa ajmalu awqaat waqtigaaga kugu qiimaha badnaa weeye hebelow ama heblaayo istiyaare marxaladda wuxuu ilmuhu u baahan yahay mar haddii jirkiisa isbedelayo in caqiidadiisa iyo cibaadadiisaba la dhiso haddii ilmaha caqiidada la cabsiiyo miir baa u samaysmayo mid edab lahoo wax aaminsan oo dee kula jihaadaya ku barbar taagan buu noqonaya ood ka nasato haddaad caqiid ahaan u qanciso waqtiyada afkaartooda caruurta laga faa'iidaysto wey ciddii doonaysa inay duufsato ama dhan kale ay u kaxayso waa waqtigay u nugul yihiin inay isbedelaan marka caqiidada iyo cibaadadaba in aada loogula dadaalo u baahan yahay waalidku daa hadduu wax garanaya haddii kalena culimada ha u geeyo waktigaa isagaa wuxuu u baahan yahay bay idhaahdeen inaad ihtimaam iyo taqdiir siiso limaa yaquuluhu cinda taxaduihi macak waxa uu had iyo jeer sheegayo inaanad iska dhagamarin ee balaad dhegaysato ila waa kan ku yidhi ictiraaf baan kaaga baahanahay nin weynoo la dhagaysan waayena waa cajabo oo ku jeeri ciyaalka markay wax kuu sheegaan waxaad odhan jirta aab orod iska soco laakiin kan in la dhagaysto u baahan yahay wuxuu u baahan yahay bay idhahan madharkiisa in la eego madharku waktigaa isbedelka xagga dharka habku u labisanayo waxaa qofka yare waa waxyaabuhu aada u daneeyo marka inaad kana warhayso isla markaana aada xoogaa xorriyada siiso wixii xalaala oo aanad odhanin surwaalkan aad xidhanaysaa shaarkan aad xidhanaysaa qamiiskaas ha u doori waaba dagaalamaysa ama haddaad tidhaa dharkan kuu dooraya bal wixii xalaala u daa laakiin kana warhay shajicu cala alistiqaa'i aljayidiin waxay dhaha ilmaha waxaa loo doorayaa saaxiibbo wanaagsan iyadoo raadaarkaaguna dusha uu ka haynayo oo aada la soconayso balalka wax marinayo weliba adiga oo aan ogeysiinayn inaad eegeysana dushana waad kala soconaysaa saaxiibbadana waad u xuraysa kolley saaxiib la-aan maayo boqolkiiba 80 saaxiibku la sheekaysanayaa bay dhaha adigana boqolkiiba 10 ama 20 marka kol haddaanu saaxiib la-aanayn oo jurujurudooda iyo warkooda badan maba ka dhargayaan warka waktigaa markaa waxay idhaahdeen saaxiibka waa inaad dee saaxiib fiican loo xulaa diinteennuna saaxiibka halkay ka taagantay waa adigoo hadday suuragaltay waa in raashinka lala cuno tanaawulu dacaami macahum waxay keenaysaa nooc dhowaanshaah iyo saaxiibtinimo ah waxyaabaha ba waxaa ka mid a amaama alahli waalasdiqaa inaad ku faanto marka ehelka iyo saaxiibbada iyo ay joogaan meesha ninkani wallaahi waa nin wanaagsan inantani waa gabadh wanaagsan markaa wuu soo socdaa si wanaagsanna waxbuu u bartay arrinkiisu wuu tiirsan yahay hebel ama heblaayo oo aana mid nacasoo waalan weeye haddaad tidhaahdo uwa firdhadayba waxaan xusuusanay anigoo beri yar baa waa qiseen tanunbay xidhiidh la leedahay ayaa maan ilaawin macnaha teenage-kaasaan ahaa aabbahay baa kutub buu i akhriyayo ninay saaxiib yihiin oo odayabaa soo ag fadhiistay way iska sheekaysteen markii dambe uhi wallahi rag badan baa xudhigi jiro ninkan yar baan iminka ka hayaayo kutubtana wuu ku fiican yahay markaa jinaasadeyda waxaan rajaynaya inuu si wanaagsan u maydho dee intii weli waan sii xusuusna marka waxay idhaahdeen
waa inaad ku faantaa oo aanad moogta xaqirin hoostu ka calaamadsanaya goor dhowto waxyaabaha dhiirinaya waa inuu talaadaada qaato tajamucaat الrijaal lixalli اlmashaakil marka mushkiladaha la xalinaya ragga inaad kaxaysaa wanaagsan geedka iyo shirarka iyo musaalaxada iyo oo goobjooga u noqdo isdiyaariye ha dhowto muranka dhalinyarada iyo muranka xaafadda iyo muranka ummadda iyo siduu u xallin lahaa waa inuu isdiyaariyaa ood meelahana u kaxaysaayo aanad odhan ciyaalku iska dhex joog ha u diidin bay idhaahdeen mumaarasada waxaan la idhahda riyaadada ama ciyaaraha arsilhu macanaa gadan yartac wayalcab wainaa lahu laxaafiduun yacquub markay ka kaxaynayeen inankiisa yuusuf ilmo yacquub waxay yidhaahdeen bal aroortaa soo ciyaaro mar hadduu ciyaaraya kaxeeya wey idan markaa waxay leeyihin qofka weyne tamartiisa wuu istoorgareeya ama keliyaha ha geliya ama calooshiisan waa tan buurnaanaysa laakiin qofkii yaraa wixii cuna wuxuu jecel inuu faaruqiyo ma fadhihi karaya ama uu daaca qurmaya ama uu seexanaya markaa wuxuu u baahan yahay inuu faaruqiyo laakiin aanay dee ciyaartii waktigii o dhan lagu qaadanina si uu nafiso un imaam alghazaali oo qarniyadii bilowgii wax qoraya waa baabku wax ka qorayo marka uu wax baranayo waa inaad eegtaa wuxuu ku fiican yahay si aanad u caburinin isla markaana aada la doorto wixii uu maaragtay dooran lahaa tabartiisa qirada iyo wax akhrinta iyo mudaalacada inuu ku jiheeyo waa inaad ku rabaysa bay yidhaaheen kaaficuhu calaa acmaalihi alxasana wax laga abaalmarinaya hadduu shaqooyin wanaagsan ama reerka u qabto ama waxbarashada ka soo kordhiyo ama cibaadada ama diinta xoogaa yaroo dee abaalmarina jaahisyad yaroo adduuna waad fiicanta bal intaasina waa gunno iyadana wuu sii dhiiranaya tajahal can tasarufaatihi alatii laa tucjibuka bay dhahay ninkaa isaga ah ama inantaasiiba waxyaabaha qofkuu samaynayo dhaqdhaqaaqa yaro khaldan isaga dulqaado ma wada saxnaan kara dee qofkii qof yari maxay yidhaahdeen intuu geed ka boodayaba talaa ka booda markaa sidaada inuu wada toosnaadaha eegine markuu wax qaldo waa inaad tidhaahdaa bal tan waa taasoo dee khariibtae wixii dambe insha alla inaga ilaali oo aana dee dabada u qaban canaantii iyo bakooradii waxyaabaha ilmaha teenage-ka ama muraahiqa ah anfici kara waxaa ka mida bay yidhaahdeen in hooyada iyo aabbuhu tusaale wanaagsan u yihiin oday iyo islaan cibaadayoome iyo canaad cibaadayoome iyo canaad hadday meesha joogaano gigtaa iyo qayladu baxayso isna khariban waxay yidhaahdeen waxyaabaha habboon waxaa ka mida goobtuu wax ku baranayo inaad ku booqato mucalimiintiisa hadday iskuol iyo masjid iyo madarisadba ood mucalimiintiisa waraysato oo hadhowna mucalinku wixii uu ku ammaanay isaga aada uga sheekayso waxyaabaha dhiiri gelin kara ay ka mid yihiin ishaacatu ruuxi shuura fi lusra waxyaabaha habboonay naga maqan waxaa ka mida bay leeyihiin marka caruurtu ay xaafadda joogaan in shirkaa congress weeye dee qoysku ah shirweynaha la qabanayo sida loo dooda iyo alra'yu waalra'yu alaakhar bal aynu isdhegaysano arrinkan ama caawa la xalinaya war dee aad ugu dhegayso ilaa haddii kale buuqii bay la imanayaan marka haddii halkaa lagu soo rabeeyo mashwaradii iyo wadatashiga goodhowto madarasada iyo shirarka iyo qof dee lasoo rabeeyay buu noqonaya dadka dhegaysan kara haddii kale microfonkuu boobaya markaad qofkaasoo kale la sheekaysanayso waxaad ka dheeraanaysaa bay idhaahdeen ijaabaadka nacam iyo laa qofkii waana sheeko la yaro wadi karta hadduu wax ku weydiiya ha maya taasoo kale waa askareeyeyno goodhow waa kala tegaysaan wada hadal idinma socon karo marxaladiisu taa way soo dhaaftay alcayshu fii caalamihim qaliila linafhamahum wanastawciba mashaakilahum bay idhahdeen mararka qaarkood waa inaad caalamkooda la yaro noolaataayoo aada isciyaal garaysaa ila nebiguba saasuu ahaa calayhi salaatu wasalaam bal nebi maxamedoo gurguuranaya ka war oo ciyaalkiisiina fuushan yihiin sida awrka yaa marka waa inaad kala garataa bay idhahdeen an tacrifa alfarqa bayna almakaanati waalmakaan makaanadaad leeda iyo makaankaad joogto kala gara bay idhahdeen haddaad makaanad weyn leedood sheekh weyn tahay ama wasiir ama madaxweyne laakiin aad ciyaalkaaga la joogto dee makaanadaadii iska soo dhaaf taytalkiiyo darajadaad lahayd ka kaala imika dee ciyaal baat imika xaasiley baat imika nin caadiyaa tahay marka haddaad brotocoolaadkii un doontaad si ay isu qondhoriso waa isku oodmaysaan ciyaalkii aad tidhaa layga xishoodo lagaa xishoon maayo la ciyaaroo beretamo oo qoslo oo kada makaanadaad waa halkeedii meesheedii la tag laakiin makaanka ilaali bay dhahan intaasoo dhan waxyaabaha laga faa'idaysan kara waxaa ka mid a qisada yacquub iyo yuusuf ibraahim iyo ismaaciil luqmaan iyo inankiisa nebi maxamed iyo da'yartii marka waxaan baraarujinaynaa uun
arrintan waa arrin fanni dhan u baahan fanni dhan weeye oo la barto fannu tarbiya u baahanna inaynu muxaadaraad iyo koorsooyin iyo dood cilmiyadii laga yeesho waalidkan ordaya xiimaya waliba culimada madaxda maalqabeenka inta caruurtooda la kulmaanba way yartay leanno dana caamay ku hawlayn marka si aynu u soo saarno dadkaynu doonayna diidaynana uga reebno baabka in wax laga barto weeye marka waxaan is leeyahay wax loo baahan yahay baraarujintiisa